وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أنت كدب وأن قد قلنا هوشنا يفرقنا وأنسي قد قلنا إن شاء الله وحي أخباري ومقع أخرنتي وصدوينتا ننبا وحي لسارة إلا أنه محاربة مركه رينا صدويو إنبيغا أما مشرحة أنت هورتيد مركه وحن أمهد علينا يا كسوغ يبقلاشا باشا بكر هذا ولاله إنه تولكا رقي دمر بآليات بعد أمهد سنتين سيدا وناكسن walaalnimada iyo ehelnimada tolnimada ku jirto garab istaagaad soo muujiseen boqolkiiba boqol aad baad u mahadsantihiin abaalkiina boqolkiiba boqol waay intaa kadib fadhiga waxaa iskale iyo shirka abubakar maxamed jide musharax mbi ijaara 2027 maasha allah musharax ijaara 2027 shirkaas iyo fadhiga waxaa iskale ninkaas iskale mid cusubna ma aha inta ka hor aan soo qaadnay annaga beesha reer qaasin waxaa ku soo qaadnay alcayn geedkana waan geynay codsigiisa wuu yaalay rag kalena waa jiraan oo ayagana la soo qaaday taana dhimale tolkan bay u taallaa insha allah wayna iska hagaagi doontaa marka wixii akhbaarka iyo shirkiisa iyo ka hadalka asagaa horta nooga horreynaya faahfaahintan siinaya tolkana salaamaya martida iyo dadka bannaanka nooga imaadeen inta badan asagaa soo dhaweynaya rag baa Mombasa inooga imaado odayaashii iyo madaxdii dad baa inooga imaaday Garis ijaara iyo qutiile iyo kurisay harana tolkii baa nooga imaaday masalaan lamaba koobi karo geedku wada arkaysiin iyo bannaanka una qaadi waaye hadii abakorna geed ma qaado waad ogtihiin mashquulaadkii adduunkan hadii way badan yihiin qofod dad badan oo riman ka soo qayb galaan u suura gelin fursad adduun marka waxaan leenahay muxushmaa soo dhawow صعب كسر دو عودي جاي مشروع سودو ودي توزيع سودو مولانا سودو السلام عليكم وما سنتين gacanta madaxweynuhu ay dhihi mogto ama meel fog meesha loo socdo ma meesha ka soo bilaabno markaas fiirin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa salaamantihiin aad iyo aad waa aad u faraxsana dadkan ma sidan maba filaynin waxaan malay inta bannaan taagan inta jirto waa isla egyihiin meeshan saak ilaa 400 iyo wax kursi camal ah qiyaasayne laakiin waa aad baan u faraxsanna aad iyo aad waana mahadsantihiin waqtigana waa iska caadi ma xumo shalay roob yaraa jireen saasaa loo yardaahe sheeqana ilaahay ha barakeeyo ducaduu noo duceeye dad badan baa meeshan jooga ma wada sheegi karno magac dad oo safarada dheer soo gale odayaal oo businessmen ah zamaani ninkii la dhaho mushtar waa kii rasmigiisa u beec mushtar heel markii la dhaho beec mushtar wax yaroo laga gedinaya maaha beec mushtar rasmi ajraamut dad baa jooga maanta insha allah dadka inta jooga aan wax yar niga sheegi oo ilaa Gaarso nooga imaadeen meeshan ugaasyaasha waxaa hogaaminaya ugaas mawliid waa la garanay hadalkiisa iyo howshiisa way dambaysaa chairman Yusuf oo chairmankii Abubakar Aadan oo Gaarisa mudee Yusuf mudee Aarey loo garanay ninkaas ku sii xigo oo fanaanad cad iyo koofiyad cad wixii cad loo arkay buu ninka hal istaag horta kor istaag ninka waxaan lahaa taagnaw ninka waxaan lahaa rees deeqow ama Ahmed deeqow Suuriye waa ina deeqow xaashuuri waa reer Mombasa waa dadka ka shaqeysto haddii mar la jirteen xaashuuri zamaani oo 3 qarni 2 qarni ka hore xaashuurigii iyo deeqsinimadiisii iyo waatan maanta maalintii maaha marka haddii xoolihii xaashuuri iyo deeqsinimada ahaydba waa waatan meesha cabdijibaari sheekada maaha دبيدا مزدقر iyo gaarta inooga imaadeen maxamed shalay Mombasa ka imaade ahal magaagaar soo ka imaade abu wuxuu ka imaade Gaaris
تقوم مقع عيد وأداشي كلا وقواني رحمة السلامي دكتور سقط حالي وحودة أنا موفلي سنة أنا دكتور إيه بس كنت أجنان كرا مركا علماء ماشي إماتي أودياش ماشي إماتين معموين كجبدها هذا وسلامتهين عن شدة مقعياش دكتور ما كفي لما هنا أنا وقتي محمد سيد غورتي مركا حتى إيده هالشيء هذا نلعب بابه ودقي إن شاء الله سياستي waxaan soo bilaabay 2013 anoo iska saynin oo ciidaha iska qoray socday ayarka ma maray dadka iska saynin oo magac weydiinaya dad qaar magac shida ay wataan magac abu kare wataan magacyo badan isku dhex jiraan tii aad ugu soo doorateen aad u mahadsantiin abaalkaas hore waa abaal jiro markiistaaba marka abaalkina sidii aan u hayaa taas ogaanaysiin waxaan aamusno doorashadii ku xigtay oo 17kii waa xarbina duqeyda waxay dhahan lug maqaadi kartiin dhinaca noola joojiye waana ku faraxsanna waana ku kalsooneen dadkii inaan dhaxda uga jirno oo annaga markaan barno nala ogolaado markii nala dhaho sidan aqbalana inaan aqbalaynona waa dareemi kartiin hadda waxaan soo bilaabay siyaasad kale oo meesha alifleeyo lama taagnaana in la socdo waaye siyaasadda MCA-ga koraan usoo yarmooday siyaasadda MBN soo bilaabay safartii hore waxaan ka soo bilaabnay reer qaasin magaaladan waa isa joognaa waad ka siisay siyaasadda waa la isla xarbini siyaasaddana muddo ka dhiman ilaa 19 bilood hadda fadhigan iyo ajendihiisa haddaan nii soo galo waxaa waaye waa campaign waa kuraaraasasho waa taageero basasho ajendada u badan waa intaas waa barya oo dadkii kolkii inaan u yeedho aan wixii aan ka turjumahayo u sheego oo aan baryo oo mabda'aas liigu ogolaado markii qoysoos u soo sheegay odayaal oo Abubakar Aadan u yeernay haddana codsigii waxaan geynay ilaa geedkii ugaas Maxamed Cabdi Samed geedkaasna waa geed oon sharfayno oo wixii aan u geysanno codsiga waa inaan ku kalsoonnaho waxaanu nasiib ku yeelanay meeshaan magaaladan iyo waddankan Soomaaliya halkii geedkii oo dhisan oo waddankan ka jiro waa geedkaas Abubakar Aadan waan waxaan ku faraxsanno shaqadiina wax baan ka qabanay waa khayr waay doorashadan horta aan siyaasad dadka moodayna hadda iska soo bilaabay anoo galaaskii lixaad oo 1996 sanadka hadda sheegan uu yar weyneenay kuwa iskalaas ku jirnaan bahashan istaagi raba aabbo u sheegay wuxuu dhahay anaga wax reeshay xasan raba uma istaagi karnaba kadib aabbo ma ku noqonin bahasha hore maan ka sii waday taatiin sababtay waa ogaay inuu leenkaas u dhahay wuxuu ka qabo iyo nidaamkeeda waan ka saay marka dadkan u maleynayay siyaasadan waa iska soo dhaxorada inta ka socota inta war ka jira waxa kada wax adduunkaas la soo bilaabay ha u maleynina inuu iska yaho un hebel shooreeri iyo saansaaniyo war xumeesaha magaalada ka jiraan waxba kama jiro haddii laba jeer hore liisoo dartay tii hore oo duqeyda ay dhahan joog aan aqbale annaga shaqaabay noo ka wixii waaba iska shaqaba saakay nina eru dareerina nina guryo dhooba nina coos soo gura nina dadu baryaasa ku raamu raba markii naloo joogana waan joogay markii nafaaso cilibsi ka aragna waa taagana ma aha siyaasadina dhaqan ay noqotay waxay noqotay fahan in la yeeshto ani magaaladan MCA ka soo ahay waa magaaladii oo ugu weyneed magaalada Soomaaliya nin walba magaalada u weyn magaaladii Soomaaliya ugu weyn tanay ahayd sharaftii magaaladan iyo Soomaaliya iyo Abubakar Aadan waan ku ilaalinay intaan magaaladan wax ka ahaana ruux canyanyaase oo la daraabay oo sisi oo magaxumadii keenayna ma nigu noqday ninkii darbi ahay magaalada waa laga soo dhaxqabtay wali maqshan marka taasna ma jirin oo inaan niiceeyo ama si kale ama wax kale la sheegona ma jirin dadkana si fiican u mathalayna meeshii cidii iyo deegaanka oo dhan wax looga baahan yahay sidii jirta u sheegayna hadda doorashada MB waad ogtihiin dad kale aan isla haysanaa oo Abubakar Aadan oo waliba reer qaasine dadka wax isku haysatiin inaad sheegto oo tacriifisa ka bixiso oo wax iska caadi ah jayfa iyo warxumaan iyo isdardar kuma jirto nin Bashiir Bayn halaha immigration oo shaqeeya nina Cabdullaahi Kaynaan asagana Canada u jira asaga waxa maqlay WhatsApp ana WhatsApp kuma sii fiicnay wax badan oo hargufahay hadii ruuxi Canada joogo soo qolkii wax loo doonayo fiican ma aha ruuxi immigration ka shaqeynayna soo ma ka sii darno hadii ruuxan dadka saa u dhex taagan oo bahashana ka saaya oo shaqo la'aanta iyo labadaas midka ay ku haboonto kulli duqeyda kala ka saaya ilaa wixii wax ma la qiimeyn oo Allah hebel inta ka baaxay saana ugu danayna kan jirta horta nimankan nafaaskaas iyo nidaamkaas ay haastaane nin Canada joogo inuu tago 5 milyan ku bixin ninkan immigration joogo wax badan dheef badan ka jirta meeshaas dad badan oo passport iyo nidaam jira hawshaas ku fiican dadkan gacmaha soo laabtay oo soo siibtay waa inay ku cuslaato laga yaabaa ana hadda casarka magaalada soo galay dadkii ehel waaye saana loo soo baxay
nidaam iyo farsamo iyo waxgarasho u baahan taasna waa ilaa maalinta usii dambe oo qabiilka naftiisa markuu wax doonay oo xarbinay wixii waxa la rabaa wax inaa ka mir dhalin karto maayne ruuxa loo raaca duurka wiimaana war maxaa loo raacdaa ma dhinacnay ka soo geliye oo duur way boosha soo doontaa waxa la galad intay ka soo geli siyaasadan oo WhatsApp-ka iyo middan immigration-ka iyo waa mid taas oo kale mid marka qabiil lagu jajabin karo maaha waxa idin sheegay meeshaan ceebna ma aho nin kasta qabiilkiis iyo nidaamkiis oo siyaasad ku doontaa waana wax iska caadi ilaa aba wax jiri doona waaye in baadoni in baabadali waa jiil isku bedela waa iska nidaam iska jiro ani waxa aaminsana siyaasadda aan rabaan karo ilaahay wax siin karaa mid uu qoyska oo ka wada midaysan yahay oo maslaxada qoyska ku jirto inaan wax ku dooni karo mid aan dhihi karo waa korihii Axmedow Budulaf buu goyn karaa korihii ugaas Mawlid wax buu goyn karaa korihii ugaas Daqarax buu goyn karaa laakiin middan bariyahan aan aragne oo aad ka maqasheen Bashiir Bayna markuu ka istaagay araaskii kumaray dhaaratan bari ka hor wuxuu anagu hooshayna waaba iska samoodal oo wax weyn ma siiho waxay noqonay han noqoto tan Abdullah noo daran دي عبد الله دي درنتو أنا برهق عشان هاسسين تيجي أنا مو يدايبه سكت عسالا لين سماه الكلام يقول بيسني ساينتنا هو سعني محاول تربو هنا ومجال وين أو هول بدن أو كامبين بدن أو جبابة إلى أبلاتيرو إلى قرناطة أتجي إنتنا إلى هذا مجري كامبين يرمهن كامبين علوس أو فرب بدن oo shaqo badan iyo lacag badan iyo tilmo badan oo baahnay campaign-kana waa lagu jawaa waa lagu rafaadaa waxa la rabaa shaqadiisa in la qaban karo wax badan aad kala ogtihiin iyo campaign wuxuu ka kooban yahay campaign-ka inaan qaban karona waa darisintiina u maleeya campaign ruux qaban karo Soomaaliya campaign-na wuxuu rabaa in la qaban karo maayna aniga waa iska socdaa ma aho meesha markii lagu dhaw koono diintu adii inay u ahay shaqada ma qaban karto ومال إريها دجان أو طول مجعيس واي روح مجعيس معها ودي إنها بالموها شغال وأنا كلا كسي أو ضد كلا كسي أو نظام كعكسي مركب وحايدين شيء سياسة أو كونسو يسيء سياسة كلا أو كاونتيجا ينظامية إسكراينا جرا هل ما دعي كرتو ضد كي أنا وضعنا أو كرسية كلا وضعنا فكرة هذا لو كلا بدلنا كرا هذا ضد كأبو كر هذا ضد كان وعليه وطو وحلاقيها كل إنه الماشى كود تولينه أنا تاسك ما دعي كرتو سو أنا قدي أنت أنا بكرة أنا برنامج بحضه أنا ضمن البدنتيس وهيستي واسكو صار عنه وصورة قلبية وأنا انطلع إيو النظام إيو وحنا صوب بانجينا عن كل إيمان مركز هدي أن دهنون إيه وحي ماشى وح بانجينا وطن وح مزيم الضوي وحاول وتسوي تكون هيا مصاحب له ما أنا تصح إلى ما هو وأعرض حساب كذا صح هان فكرته هو كله بدلنا كرنا أنت لو كلا جري كلا سام وهان كرتا لكن بقولك وبقول هي أنا واللي يقدرني أنا حمودة بشير الضوء النحى يوليه عبد الله إيه درن أصل ولي أبو بكر هذا إيمانين أو ولي يستحمرين أو كان بين وين سمينين بهالشيء صدق كمرة هاي صوتي عدة لو كسر جريمة هوش عن مكبحي كرا رحت أشوف شيء جيناي عبد الله كينان لما بيجوا وانين مقبل وهي ما أنت كان أنا على هذا أنا ماشي عشان أضرب ربنا هول معها هول يا عرب مريضة حوس بدنا ما قص شاطر عسل أبوك قويني قص كسانة ويرتوري لكن عربض وهاين إيده بيسكتولي لما أنا جام وأنا نلا دورته إسكتول ملاس عربض ده سان ديارنا ما قص كاس واحد يقول لجورة يحرون ما قص لجسوا قاعد أنا يتمشى على القاعدة وأنا اسمها نوضيالة هنا هذه أدو فهمة ماشي قدير أجرتا قبيلة أجرا قبيل كم وشقين دونا وحبور روان دونا إنس إيال روان دونا ضد وح كدرسان دونا نظام بدن أجرا وحن لسي منطقة أو لكوفة أضو بتالي لوجان أو ضد قار إسبرن على ذو ما يعني واحد أو صاحب وحلي وشيء وح يقول هاي مله وح شقين هاي مو طبعا أنا اسمها النوع وأنا لو غلط أنا الفهم تروح لسوق الشارع مركز نبأ أنا واني بري أنا وحنيجا عصري أنا قاعدين أو أبو بكر هذاك وينا إلى دجامي كان عصير أحمرنا إلى هلوق وعن سعون دارا عن ضد بدن هادين دارا عن ضد بدن بري دارا سلام بدن سمين دارا هاشنا وانكسي وأنا اسم قبرنا هاشنا قالن شب بدن يفرتا دلال كاسنا وان سمين دلال كاسنا دار شدي 17 كان صامرنا سنة ويقوم معاند سنة وأخر ببنات سنة هذا أخر فعلنا تي هراء إسقابير قبل بنات تي دميسة لكن وين معاند مركز دمبه كان بين واحد سوق لو ربع يشقوا ربع أنا شقة واقع كرا لكل سجن إلا هلا هرت حكوا رئيس شقة إلا قبل وعشان راعي أنا ما أعطيك أقول ما أعرف
دي عم سكول لقينا ما قاروا ماشي جو سهران سكول لو بيحكي كلاس كشان كان والله كوفي عين لهي هوشا أنا وكوفي عنا ضدنا waxay ku fiican hawsha marka hawsha saaha ma u kala mirbaato midii kale ciidan waa cid sharaf leh daba dhaqnimo iyo lagu ogo iska kayso raac iyo intaan ku wata iyo waxyaalo qaar waxyaalihii socdaan iyo siyaasadihii socdaan hadda stop gelin waayno oo shan ruux inta looga yeeray saddex ruux inta looga yeeray kan waaye warqad aruuri bashqadan waa iga qoosay waxba uu ka soo noqon waayay waxa kala oo dadka maskaxda looga qasay annaga dadna ma dul bahayno samoodan badan aan wax u galnay dad baan ka soo qaad imbi u taageerne oo qoys kale samoodan raxmad oo dibid gaban u taageerne cid baha aan kursiga masalaan oo weyn aan ku badano oo uga tagne maxaa Cabdallah waan dooranay Safiya maraan dooranay oo samoodan oo wax u galino abukar maxaa ka sheegan karo ma hadii noqoto dadkaas ayaga ama siyaasiyiintooda ama dadka odayaashooda ama wixii businessmen ayaga magac xumadooda sameeyna dadkaas ma wanaag oo hay adi MB aan ku wada oo meel aan ku marnaa ay kiniga shaqeeyni وعماشان waa in wax la fahmo way dab way hadii dadka badan wax sheeg waa inaan wax ma shaqeynayso marka waa inaan isfahno magac xumeen iyo shaqaalaha hadii la dhibaatayna iyo ruux siyaasi hadii la dhibaatayna kulli docdo ay naga soo gashaa meeshii iideedina dhahno siyaasadda intana ba ka daran aan ila ma shaqeynayso tusahina ma aha haday to hoseensaas ay wax la helay tara la helay oo wax la intay soo gali anaga seensaas ma haleen toor ma wahayno wax ku haleen waxaan inta toor wax way qaban waa marka magac xumadaas oo dhan aan abuul ma dhahay gooni hebel ma dhahay gooni waxa la abu qaraadan waay marka ruux rabo qabiil dhanba inuu magac xumo u yeelo adoo intaas oo wanaag sameeyay xidhi xaaji ilaahay una xariistay sanataan dooranne barigi aan sanataaga dooranayne waa ogeedeen waa kiisa maama Safiya ay soo gashay dhinacaas kale wixii nooga imaado waa ogeedeen dhaar MCA masalaan aan ka tagnay mar dhaxdan waxa maqlay MCA wuxuu dhahay ciidan maxay sheegay abu qaraadan inta la dhahay barsa la tagay yaa luqoskay dhiman abu qaraadan dhiman oo meesha may soo gaar arrin xaq may soo gaar xaam wuxuu sheegay wadanka magaalada ma sharaf xumadaas iyo nadaam xumadaas naguma qaban karin hadii marka noqoto ruux la soo adeejisanay inay hoosha inuu wado ay noqoto hoosha ma shaqeyn karto hoosha hebel waa iska wata maaha nin oo kuleeyo aniga siyaasadda horaan liiga reebay eesaana soo jirtay oo haddana asooba waxba soo marin ba turqata marin wali meel marin abukar aadan 200 ruux ama 50 ruux wali arkin waxa kala hada loo fariinta gumareeyay maanta waxa abukar aadan oo ana waa liiga dareeya samada meeshan waxay noqoto fariimo hadii laga dareeyo meesha waa ku celina ana ka dhaw meesha ana u daraado bayna warkaasna oo sheega waana la maqlay insha Allah hadii wadan odayaashan soo dhaweeyni aan rabaa inay ka hadlaan oo codsigaas iyo baryadaas ila qaadaan waqti badan dhiman waa isjiid badan dhiman annaga wixii lagu soo taliyo oo la dhaho maslaxada dhaafin waaysi oo odayaasha abukar aadanka iyo maamooyin iyo geedka ku soo taliyana daan raba inta nala reebay Allah raxmas ka galay adana markii bartida la bogo meelaha dhinac Allah u jeedaaba hulli waay maneero wax la sii doonay ma lahayn marka waxa diidayna ma dhinac diidayna ma shaqana naga ma halaabayso ruuxa shaqa ka halaabay ama keenada diyaarad 24 saac soo saarnaanay meeshooda ha joogan shaqada waaba la leeyahay waaba la doonayay shaqa 500 oo kun adee oo iyo bishi iyo lulufkeed wadato hadii aan soo wax ku sheegno ma fiicnaa luluf badan qabto waliba luluf ma laga soo tag shaqada bayna haysto heen oo dhan meesha ku idilba marka maxaa looga soo tag baruuc abukar aadan ku jiro ma walaay wax kale immigration ka shaqeynaya ma qasheen ciise wadil ma qash adciiso ka warramay ninkan waa qar ku saaranba muu maqlinba marka waxaan rabaa odayaasha codsigaas inay la qaadaan kadib markaan odayaal kooban ay nafaas helaan insha Allah aan hadana ka jawaabo aan ka mahad celiyo arintaas liigu taageero wixii lagu taliyo dambana waa nii sheegay bartanka uga jira sidii soo baxdoba xisaabihi isku taasna bartanka uga jira aad baan u mahadsantihiin fadhigan ma dheeraynayno insha Allah maanta aad aan fara badanna marka inta naga dhamaato oo sawir iyo qaadano meeshan geedkan munyada ku caanbaxay magaalada waxa la moodaa inaan joogin baan waxa aaminsan yahay hadda abukar aadanka wadankan joogo Sangayl Luuqo iyo Ijaara markii kula ahaan dhaho 160 intaan joognaa MCA meeshan waa inaan u tashano oo kii Sangayl loo tashado oo waa bariyadii yarka ka rabo loo tashado si kasta meeshan nidaamka inuu jiro waay meeshan adduunka waan dhacay ma soo noqonay hadii marka aad soo qodo soo lama dhaqay ma saadana lama xirnay siyaasadda waa la dhaca hadana waa la helaa laakiin waa iska niyad jabay ana shaqul kuma lihi oo shaqul kuma lihi meel waliga ba shaqul kale hadii lagu leeyahay kaale meeshan aan dadii ku jirnaa shaqayna ima warka ma badinay markii Dubai hadlaan insha Allah waa ku soo yar noqon doona hadan nin baan mikrofon ku dhigi oo odayaasha nafaasiin si kooban oo waqti gaaban aan insha Allah halka ayna ku jeedano aad u mahadsantihiin